Fadhigii 17aad ee Golaha Wasiirada Somaliland oo uu shirgudoominayo madaxweynaha Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo uu helinayo madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Saylici oo maanta qabsoomay ayaa waxaa lagaga dooday qodobo ay ka mid yihiin arrimaha doorashooyinka, abaaraha soo food saaray meelo ka mid ah dalka iyo arrimo kale oo xasaasiya. Ugu Golaha Wasiiradu waxay fadhigii maanta ku lafagureen in la xoojiyo amniga waqtiga doorashooyinka isbarkan ee Golaha Wakiilada iyo Deegaanka ee Jamhuuriyadda Somaliland oo u qorshaysan inay dalka ka dhacdo 31 bisha May 2021. Waxaa kaloo Goluhu go'aamiyay in guddi abaaruhu dib u hawlgasho xubno xaqiiqo raadin ah una dirto goobaha abaaruhu ka jiraan ee u baahan biyo dhaamis raashin isla markaasina ay soo food saartay ay ka soo yeelayso baaqiyo qayladhaan ah loona gumrado muwaadiniinta tabaalaysan ee abaaruhu saameeyeen. Goluhu waxa uu ka duulaya baahiyaha soo noqnoqday ee la xiriira biyo yaraanta waqtiyada qaar. Waxay isla meel dhigeen xukuumadda Jamhuuriyadda Somaliland sanadaha soo socda xoogga saarto qodista biyo xidhno waaweyn si looga faa'iideysto waqtiyada abaaraha iyo biyo yaraanta. Ugu dambeyntii waxa uu Goluhu isku raacay in si buuxda loo soo celiyo wacyigelinta ka hortagga COVID-19 oo waqtigan dunida ku soo labakacleeyay laga maarmaan ay u tahay in bulshada laga wacyigeliyo halista uu leeyahay cudurka safmareenka ee COVID-19. Cabduha Maxamed Jaamac Cirguje Sahan TV Hargeysa.